السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran janaalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantiin maanta waa arbaco waana 24 bisha December ee 12 sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago waraysi aan la yeelanayo Saciid Maxamed oo ah nin muwaadin Mareykan ah asal ahaanna Soomaaliya ka soo jeeda oo ciidamada ICE ay Minneapolis ku dhex istaajiyeen maalnimadii Isniinta ahayd waxaan ognahay ICE ku dhawaad muddo bil ah inay hadda howlgallo ballaaran ay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis isla markaana dadka wadooyinka maraya ay istaajinayaan mararka qaar oo ay sharcigooda weydiinayaan haddaba wada hadal ayaa dhex maray Saciid Maxamed iyo ciidamada ICE markii ay istaajiyeen waxaana uu u diiday in xitaa leesankiisa uu tusiyo iska badaa in uu sharcigiisa bal inta aan waraysiga aan Saciid la yeeshay aanan u guda gelin bal marka hore ila daawada Isniintii maxaa dhex maray Saciid iyo ciidamada ICE markii ay istaajiyeen. Do you have your driver's license? Yes, I do. All right. But what is the Let me purpose? please see your driver's license. What is the purpose you stopped me for? May I please see your driver's license? But what is the purpose I'm an you stopped me? immigration officer doing an immigration check right now. Yes, I'm a United States citizen. Are you a United States Yes, citizen? I am. Okay. You have to prove that to Can you us. provide an ID for us? Yes, to I could. verify that, sir? Okay. But what is the purpose you guys stopped me for? Because I look like Somalian? No, it's not because of your looks. It has nothing to do with your looks, sir. What is it? So you have your driver's license? Yes, I do. Okay, the sooner you give us your driver's license, the sooner you could be on Now your I way. can give you my United States citizen. Okay. As soon as So- you prove that you're United States citizens, we'll send you on your way. So what is the reason why you guys stopped me? There's a reason it has to be Right. you stopped me for. And it has something to do with the vehicle possibly being Oh, no, tied you're left. to Camera. What is it? individuals that are not here in the United States legally. So can you just verify your... Individually? Huh? What did you say? That's individually on the car? Because this car is registered under my name. And what is your name, sir? I don't have to tell you that. Yeah, actually, What is your name? you do have to identify Yes, but yourself. I have to identify That's myself all we right there. need. That's all we need. But what is the reason why you guys stopped me? You're harassing people. It's USC. I'm a United States citizen. Okay, see it? Now you don't need to see it. I need to identify who you are. It's Just right hold there. it up. That's all you need to do. There's no reason All for right, you. cool. You're good. Have a good one. Thank you. Yeah, you're harassing people. You trying to kidnap people. Kidnappers trying to kidnap little girls. Get the fuck out of here. Kidnappers. Get the fuck out of here. Get out. Get the fuck out. Fucking idiots. laakiin hadda qadka telefoonka ayuu ku jiraa bal waxaan rabaa inaan weydiiyo sida maalnimadii Isniinta ay wax u dhaceen cilmi waa mahadsantahay waa dhowahay aad iyo aad baa mahadsantahay daawayaashaadana waa salaamayaa waxay ahayd adigu 10kii barkii subaxnimo meelahaas ay ahayd 11 subaxnimo shaqada gelayay anigoo shaqada usii dhow oo ilaa iyo one block u jira shaqada ayaa waxaan soo istaagay traffic light traffic light markaan soo istaagay ayaa waxaan arkay baabuurkan muraadaha madowga expeditionka iga dambeeya markaan arkay waxaan u malaynaya boolis caadi ah caadi baan iskaga socday shaqadeeda dhinacay ugu socday markaan shaqadii saa ugu soo dhawaaday ayay nalalkii igu shiteen booliska camal oo ahaa ilaa markaa waxaan u haystay inay yihiin booliis marka gabar baa kasoo degtay keligeeda markii hore oo maaskii waxba aan xidhnayn markay agtayda soo istaagtay ayay ID-ga ii weydiisay markaan fiiriyey iyadii ayaa waxaa arkay inay dhinacan hore ay ugu qoran tahay ICE waa gar markaan dareemay inay ICE tahay telefonkeygaan soo qabsaday markaasaan bilaabay inaan duubo waa gar recordingkeyga But what is the purpose? marka waxay tiri ID-gaagii ma haysataa driver license You have to prove that to us. marka aniguna hay-addan la shaqeeyo oo SEIU unionka ayaa waxay tahay hay-ad baryahan dambe sidii ICE u bilowday howlahan waxaan baranay communitygeena iyo dadkeena iyo dadka immigrantka xuquuqdooda iyo xaqoodan baranay oo videoyaal macala Soomaaliya ku tirsanay qofku xaq wuxuu leeyahay iyo sharciyada ayaan diyaarinay waa gartay hay'adda haddii aad noo macnayso hay'addu maxay tahay yeesa u doodaa aad u shaqayso hay-addu waa SEIU baa la dhahaa waa union waxay u doodaa dadka shaqaalaha waa gartay adigoo ka shaqeeya wadooyinka kuwa dabaqyada dhaadheer habeenkii hagaajiya nadiifiya airborada dadka ka shaqeeya
securityada dadka ka shaqeeya dad badan noocaas u leedahay waxay haysataa ilaa iyo over 2 milyan oo qof ayay matashaa marka ka muwaadin ahaan adigu marka xuquuqdaada waad garanaysay markii aad aragtay ciidamadan ICE aad iyo aad baan u socday xuquuqdeena si fiican baan u fahamsanaa waa gartay marka waxyaabaha ay ku weydiiyeen waxaa ka mid ahaa laysinkaada na tus si aan u ogaano gaarigan inaad adigu leedahay in kale iyo sharcigaada na tus sharcigii intii aan la gaarinba waxaad u diiday inaad laysinkaada tusiso maxay tahay sababta aad ugu diiday marka inaad laysinkaada tusiso waxaa jira sharci markay tahay howlaha immigrationka oonu ahayn police officer oonu ahayn askari aanu ahayn askariga immigrationka markuu qof istaajinayo wadada dhexdeeda ay tahay inuu laba wax ay haystaan inay og yihiin qofkan ay istaajinayo qofku yahay oo qof sharci la'aan inuu yahay iyo reason of suspicious inay wax kale ay daba socdaan oo dabagal kale ay qofkan ku daba socdaan oo ay ka shakisan yihiin marka labada midna mayna ahayn kalarahaankayga iyo wejigayga iyo qofkaan ahay iyo sidaan u ekahay daraaddeed bay ii joojiyeen marka anigana waa xaqayga videoga haddaad aragteen waan weydiiyey sababtay ii istaajiyeen oo weliba 5 jeer baan kusoo celiyey wana ka jawaabi waayeen sababtay ii istaajiyeen maxay dhammaayeen askarta soo degtay oo gaariga ka soo degtay oo gaarigaada ag timid markii ay ku istaajiyeen ilaa imise ahayd waxaan u malaynayaa 5 qof bay ahaayeen magarad waa gartay marka ma hal qofaa su'aalaha ku weydiinaya mase dhowr meelood ay su'aalaha dhowr qofaa ku weydiinaysa wiil iyo gabadh adigu daaqadeeda ag taagnaa ayaa su'aalaha badankooda weydiinayay markii dambena yar adigu madowga oo black american oo malayna u ahaa ayaa dhinac kale kasoo istaagay kaasaa isaga weydiiyey kaasuna qofkaan tusay marka aad la hadlaysay daaqada gaarigaada ma wada dejisay mise qayb ka mid ah ayaa dejisay si aad isku maqashaan maya anigu cabsid kolley isma dhahayno dee wax sharci darraa iyo wax qalada manaan sameyn waa ogaa marka daaqadeeda all the way way ii dejisnay waa gartay marka sharcigii waad u diiday sidoo kale waxaad tiri muwaadin maraykanaan ahay waxyaabahay ku weydiiyeen waxaa ka mid ahaayoo kale xaggeed ku dhalatay marka su'aalahaasoo kale markii aad maqashay maxaad dareentay wallahi kolley maxaa la dhahaa sharciga waxyaalaha uu qofku u banaynayo maxaa la dhahaa waxaa ka mid ah inaynan qofka aynan weydiin karin waxyaalahaas oo kale ma garatay marka jiriyaasha adigu kolley ID-gaaga keen markaan ku yidhi American citizen baan ahay ayay 3 ka mid ah ay dib iskaga noqdeen waa gartay anoona ID-ga soo saarin waxay ku adkaysteen labadii meesha ku hadhay inaan ID-ga tuso anna waxaan ku yidhi ii sheega reason marka ugu horeysa aad ii istaajiseen markay ii sheegi waayeen waxay isku dayeen inay dhinac kale u rogaan ay dhaheen gaarigaaga ayaa suspicious laga yahay oo gaarigaaga inuu ku qoran yahay qof immigrant oo sharci la'aan ah gaarigana anaa ka qornaayo dee gaarigayga inuu yahay oo anigu ku qorana waan sogaa marka ICE sida muuqata iyagu sharci uma lahan in number plate-kaada ay rangareeyaan oo ay ogaadaan qofka aad tahay laakiin waxay doonayaan inay laysinkaada kaa qaataan xogtaada marka dad kale ay la wadaagaan oo yidhahdaan bal laysinkan noo rangareeyo qofkanu sharci ma leeyahay mise sharci ma lahan sidaas darteed ayay u muuqataa hadda saas u muuqataa waxaasna waxaa ku shuqle booliska waa state law waa sharciga state law ma garata iyagu waa labada waxaan kuu sheegay hore kugu sheegay inay og yihiin qofka ay rabaan iyo inay waxyaale ay u daba socdaan qofkan uu jiro laakiin qof wadadaas ka maraya qof kastaba hadday istaajin lahaayeen ha laakiin qof midabkiisa iyo kalarkiisa baraada loo istaajiyo arrin waxay ahayd dhacdo aad foorxan oo xadgudub ah shalay waxaa jirtay sidoo kale shir jaraa'id oo gudoomiyaha gobolka Tim Wallis maayarka Minneapolis Jacob Frey iyo sidoo kalena maayarka St Paul Melbourne Carter ay wada qabteen oo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshadana ay ka qayb galeen waa lagugu yeeray ma wada hadasheen laba maayarka Minneapolis iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka maxayse ku yiraahdeen waan wada hadalay shir jaraa'id markuu dhammaaday kabacdii baan wada hadalay waxay ii sheegeen inay aad iyo aad ugu xan yihiin dhacdadii dhacday ayna arkeen videoyaasha arrinkaasna aad ugu xan yihiin ay ku tala jiraan in statekan iyo dadka muwaadiniinta Maraykanka nabadgelyadooda iyo safetygooda si loogu shaqayn lahaa waxyaalahan kale say ugu dhicin sidoo kale waxaad ii sheegtay qareenada ururka aad u shaqayso xuquuqda shaqaalaha u doodo
in iyaguna shalay ay ku wareysteen oo sidii wax u dhaceen ay ka wareysteen iyaguna maxay doonayaan ma dawladday doonayaan inay dacweeyaan sababta maxay tahay ay shaqaan lawyeriska lama lawyerada aad leedihiin kambanigiinu iyaguna shalay ay kula soo xiriireen amaba ay warbixin kaaga qoreen kolley dee qof hayadiisii iyo shaqadiisii loogu yimid baan ahay magaratay marka maxaa la lahaa kiiskan oo kale waa muwaadiniin badan oo maraykana statekeena iyo dad badan ba ay ku dhacday ayna ku dhici doontaa marka waxaa la rabaa in xogaha iyo hay'adda care iyo qof kastaba iyo statekeena wada ururiyaan dhacdooyinka noocan oo kale in lasla wadaago oonay noqon dhacdo intii la maqlo laska sii dayn laakiin haddeerto wax dacwada oo haddeerto la samaynayo mise haddaanan ka warhayo ma jirto wata waxaad ii sheegtay shaqadaadaad usii socotay waadna ku dhoweyd 11 ayaad galaysay marka muddo intee la eg ayaa ice marka ay meesha ay kugu qabteen wadahadalkiina uu socday shaqadaadiise on time uga gaartay mise waad ka daahday wallahi shaqadeeda horteeda ahayd meeshaan istaagay markii wada hadalnay shaqaalihii shaqadoo dhan baa soo wada baxay oo viriyaasha badankooda qaarkood macal shaqaalaha duubay ee banaanka uga soo wada baxeen marka de waqtigii shaqadii iyo argagixii iyo cabsidii markii meesha looga joogay systemkii iyo waxaan ku shaqaynay iyo nidaamkii waqtigaan shaqaynay waan ka yara daahnay oo dibdhac baa nagu dhacay oo inaan waqti dambe haddana hawshan iyo waxa dhacday aan ka wada hadallo ayaa nagu timid ismaaciil marka dad adiga kula mid ah oo muwaadiniin maraykan ah oo ku nool St Paul iyo Minneapolis oo waxaa jira ku dhawaad muddo bil ah xitaa goobahoodii ganacsiga aan furin qaarkood shaqadii ay ka joogeen xitaa iyagoo muwaadiniin ah waxay ka baqayaan ice inay qabtaan oo ay xiraan oo ay jiidjiidaan maxaad kula talin lahayd marka dadka sharciga haysta ee maraykanka ee ka baqaya inay banaanka u soo baxaan ama shaqooyinkooda ay soo aadaan ama goobahoodii ganacsiga ay furtaan wallahi waxaan kula talinayaa dadka muwaadiniinta inay ogaadaan xuquuqdooda iyo xaqooda waxay u leeyihiin waxaa jira website oo SEIU ay leedahay aan soo dhignay know your rights wax la dhaho oo qof kasta xaqiisa iyo xuquuqdiisa inuu ogaado oo af Soomaali ahaan loogu turjumaanay inay halkaas ay ka daawadaan ay ka akhristaan shaqooyinkooda iyo waxaana ay dib u soo noqdaan iyo ganacsiyadooda waxa kaliya aan ku dhiirigelin waxa weeye markastaba horta inay sharcigooda ay wataan oo sharciyadooda ay gacanta ku sitaan ama jeebka ku sitaan maxaa la dhahaa waxay xaq u leeyihiinna ay ogaadaan waxayna xaq u lahayna ay ka fogaadaan aad iyo aad u mahadsan tahay Saciid Maxamed waa kaaga mahad celinayaa wareysiga aadna siisay maanta aad u mahadsan tahay